her hair. She was cold. Oh, Chris, what did you say to her? Can you share that? I said I was sorry. waa qiso aad cajiib u ah cajabisayna dad badan u dhacday si xaqiiqi ah qisadaasoo ku dhacday family ku nool dalka Mareykanka una dhashay dalkaas reerkool waxay ka koobnaayeen 5 ruux aabe Chris hooyo Lauren iyo saddexdooda caruurta waxa ugu weynaa Kyle oo jiray 5 sano ahna wiil waxa ku xigay Emma oo jirtay 4 sano ahaydna gabar waxa ugu yarayd Katie waxay jirtay 2 sano waxayna ahayd gabar sheekadan oo dhacday sanadku markuu ahaa 2007 bishuna ahayd bishii 5aad ee May waxay tiri Lauren oo ahayd caruurta hooyadood maalintaas waxay noo ahayd maalin aad u farxad badnayd maxaa yeelay waxay ahayd maalintii dhalashadiisa wiilkayga Kyle waxaan geeyay ayay tiri moolka si aan u soo ciyaarsiiyo caruurta oo ula soo qaato farxadda dhalashada Kyle waxay tiri Lauren waxaan soo dhammaysanay ciyaartii iyo farxaddii waxaan soo kaxeeyay caruurtii annagoo u soo soconna gurigii intaan jidka soo mareynay ayaan waxaan galnay wax yar oo taraafiga baabuurtii oo dhan ayaa istaagtay wax yar ayaan gadaal u milicsaday waxaan isiri caruurtii fiiri xaaladda ay ku sugan yihiin waxaan arkay gabadhaydii yarayd oo 2 jirka ahayd Katie oo sii gamaysa waxay tiri waxaan ka taabtay cagaheeda ama faraha lugaha hore si aan u toosiyo oo markay guriga tagtay ay u seexato waxay tiri waxa iigu dambeysay markaas miyir waxay ka dambeeyana ma xasuusto waxay tiri intaan sii suuxayay oo koomada sii galayay ayaan waxaan xasuustaabay tiri inaan maqlay macdan jajabaysa waxay tiri dhawaaqaas wuxuu ahaa dhawaaqi iigu dhibka badnaa iiguna xanuun badnaa iiguna foolxumaa oo aan waligay maqlo gaarigii reerka ay saarnaayeen ayaa waxaa gadaal ka soo galay oo jajabiyey baabuurtan waaweyn oo xamuulka ah loona yaqaan looriga waxay u waceen dadkii meesha joogay oo shilka arkayay ambalaastii dadka goobjooga meesha ka ahaa waxaa ku jiray goobjooge wuxuu yiri waligay ma arag shil saano culus waxa ugu soo horeeya ee maskaxdayda ku soo dhacay waxa ka mid ahaa yaa ilaahi seen maanta caruurtan ku badbaadinaa reerkii shilku ku dhacay waxaa loo kala qaaday 3 isbitaal oo kala duwan hooyo Lauren 1 isbitaal labadii gabdhoodna 1 isbitaal wiilkiina mid gooniya Chris oo lagu magacaabo aabaha caruurta waxa uu joogay shaqadiisa markii dhakhaatiirtu waceen una diideen inay u sheegaan xaaladda ay familigiisu ku sugnaayeen ilaa uu yimaado hospitaalka wuxuu yiri waxaan imid hospitaalkii gabdhahayga la geeyay Emma iyo Katie waxaa la ifariisiyay qol yar waxaa ii yimid dhakhaatiirtii waxay i dhaheen gabadhaadii Katie way dhimatay waa ka xunnahay isla markii ayaan weydiiyay buu yiri xaaladda Emma oo ahayd 4 jir kana weyneyd 2 sano Katie waxay igu yiraahdeen buu yiri waa ka xunnahay Emmana waa ku daysay aabihii caruurta wuxuu yiri waxaan dareemay noloshaydii inay baaba'day mugdina aan galay wuxuu yiri waxaan garan waayay inaan qarwayo iyo inay run tahay telefoonkii furayaashii iyo jilbahayguba dhulka ayay qabteen oo hinna waan qabsaday waxa la ii keenay isbitaalkii ay xaaskaygu ku jirtay iyada oo suuxintii ka soo kacday markaas ayaan u sheegay gabadhaheennii inay geeriyoodeen kadib ayay iyaduna oohin qabsatay oo ay ku shallayday seebaan aniguna u noolahay iyaguna u dhinteen hooyadii waxay weydiisay aaway wiilkaygii Kyle waxaa loo sheegay inuu Kyle keligii isbitaal ku jiro lana harjadaaya nafta geeri iyo nololna uu u dhaxeeyo hooyadii caruurta waxay codsatay in loo qaado wiilkeeda oo ay la joogaan iyada iyo aabaha wiilka yar codsigoodii waa la aqbalay waa la dulgeeyay wiilkii oo ku jira xaaladii sakaraadka waxay u sheegeen dhakhaatiirtii shilka ku dhacay reerka inuu shil culus ahaa Kyle-na dhaawacyo culus ay soo gaareen oo ay ka mid tahay in maskaxdiisu ay laba u kala dhaqaaqday
waxay yiraahdeen Kyle waxaan gelinay qalliin degdega laakiin waan ka xunnahay waan ku guulaysan weynay isla markii waxay guda galeen inay mishinadii ku xirxirnaa ay ka furfurtaan si uu u qaato neeftii ugu dambeysay waxay yiraahdeen Kyle gacantaan ka haynay garabkiisana waan fadhinay xabadkiisana gacanta ayaan ka saarnay annagoo dareemayna daqiiqadii uu joojiyay inuu neefsado waxaa la weydiiyay aabihii Kyle ma la hadashay wiilkaaga wuxuu yiri haa waxaan ku iri aabe waan ka xumahay inay waxaan kugu dhacaan anigana aan ku caawin waayo waan ka xumahay noloshaadi gaabnayd oo qurxanayd inay soo afjaranto waxaan rabi lahaa booska aad maanta joogto in la igu bedelo waxaan rabi lahaa wax walbo dhacay inaan bedeli karo laakiin ma noqonayso family call waxay yiraahdeen waxaan gurigeennii kula noqonnay murugo iyo cidlo dhan walba oo aan eegno waxayna xasuusinayeen caruurteennii waxay yiraahdeen muddo ayaan ku noolayn murugo oo aan qabsan weynay nolol maalmeedkeennii hawlaheennii nolol maalmeed 6 bilood kadib waxaa ku dhacay reerkii mucjisadaas oo cajiib ku noqotay ummadii reerka ku hareereysnaa Lauren waxay yeelatay uur waxay tagtay hospitaalka waxa la saaray iskaan waxa lagu sheegay 3 mataana ah 3 mataana caadi ma ahane waxa lagu sheegay 2 gabdhood iyo wiil inay sido Lauren way umushay waxayna u bixisay caruurtii Ashley Ellie iyo Jake wuxuu yiri Chris murugadiina haysay waxay isku bedeshay farxad gurigeennii cidlada ahaa wuu buuxsamay aamuskiina wuxuu isku bedelay qosol laakiin ayuu yiri caruurteennii naga geeriyootay marnaba ma ilaawi doono qalbigeenna iyo xasuusteennana maalinna kama bixi doonaan